موعد إنان كهالله مثل أول رأي وحويان ورسداد بني آدمكم إله ذا وضع أبورتي إله يضو وضع أبورتينا وحو سيي سمع يا بصر وحي حن اسكت ديدو وحي في عنا وكو أقبله وحي دنيه سانا أود وكو قبصدا إلهسي تبع عداس إنه وريكسن oo si kastaba aynu arkayno oo dabayl leh oo bad leh oo biri leh oo beer leh oo xoolo leh ilaahay bil aadamka ayuu ka saramariyay wuxuu siiyay awood uu ku bedelo uguna tasarrufo sida isagu doonay had walba cidii fahamtay awooddaas weyn oo ilaahay siiyay waxbay ku qabsadeen dhibaatooyinka dabeecadda kaga imaanaya ama bini aadam kaga imaanayay marka ugu tabaabushaystay waxay ku qabsadeen waa anfaceen qolo walba noloshoodii ayay ku hanteen qoladii karteen waxay kaga baxeen faqaaradii waxay kaga baxeen jaahilnimadii waxay ku qabsadeen danahoodii ayay ku xaqiijiyeen kuna sugeen inaan dhibaato ugu imaanin ama ay dhibaatadii ka timaadaba ay uga gaashaanteen say uga hortagaan markaan sidaa leeyahay waxa weeye ururta awoodii ilaahay ina siiye ku amal falkeedii Allah ina garansiyo ku amal falkeedii Allah ina garansiyo shacbiga Soomaaliyeed bini aadamkaas kale tuu kamid yahay oo badan haddana waa markaan leeyahay dal taajira iyo dad faqiir ah isku dul nool dadku faqiir weeye ruweeye laakiin dalku taajir weeye ilaahay wax walba waa dhigay bad buu dhigay beer buu dhigay xoolo ka badiyay هو في عبوسية كل جاي شهر بينه قبنا لبيه طبعا كبلو شهر كاسل قبلنا أدون كميرا بدن كمان على التاس دور نوع أو لبس وين اللي يسكب الدار أو دحانت مد اللي يسقى عليه أو مد غرعة اللي يسقى عليه أو مد دويشي بلايوه وين اللي يسقى عليه أنا قاعد بإلهي نورون لكن واحد مده أما أصل أقوم ضره هينو جيش أما استعمار با هينا آمنسيو إننا وحلقة بسنة يقبرينه هينا آمنسيو haddana waxaad moodaa inaynu fiqiirnimadii kula nool lahay sababihii la imaan hayeyna inaynaan dareemaynin sidaynu isaga caabii lahayn waxaad moodaa habkii ama tabtii aynu kaga bixi lahayn dhibaatada noocyada kala gedisan leh oo ama bini aadamku uu dalkeenna u geysanay dadkeenna ama dabeecadduba haddaadan la dagaalamin way kula dagaalanaysaa awooddii alla ku siiyey aadan uga hortegin oo aadan wax ugu qabsanin inay ku hayso shacbigeenna dhibaato badan haddana waa dalka taajirka ah saanu sheegahayo dadkeenu sama garan tajaaradaas ilaahay siiyay oo dadnimo oo dad fiican way dadkeenu dad xun maaha iyo qaniimadaas ilaahay dalkooda ugu beeray nooc kastaba ha noqotay inay ka faa'iidaysan laayeen faa'iido daradaasna ay ka imaanayso dariiqad aan habboonayn u fakarta ama ku shaqaysa weligoodna uu isticmaar lu ku leeyahay ajnabi uslu ku leeyahay intay iyagu taladooda iyo tabartooda iyo dantooda iyo dalkooda iyo naftooda iyo ilaahay inta aamina ay wax qabsan lahaayeen waxaad moodaa aad inay ugu janjeeraan cid kale inay wax ka sugaaneen waxaad cid kale ka sugtay ma ku dhalgin karaane maya ma ku dhalgin karo bariya aadan ma ku dhalgi karaysaa weligaa kuma dhalgaysa wax kastaba ha lagu siiyo inta ugu xoolo badan adduunka hadday waxooda kugu shubaan weligeed ku deeqi mayso waxaad adigu gacantaada ku qabsato iyo maskaxdaada iyo taladaada iyo garashadaada waxaad ku qabsatay wax ku deeqi kara intaasaa jira oo uu la jiro iimaan iyo kalsooni aad naftaada iyo dalkaaga iyo diintaada aad ku qabto wax kaloo ku deeqi karaa ma jiraan soomaaliyay dantaada u jeeso iska daa indhahaad u taagayso dalal kaleeto iyo wixii ka imaanay warkacay aynu tabcanne beereenna aan tabcanno oo baddeenna kala soo baxna wax ku yaal oo xooleenna aan xanaanaysanno aan ku noolaanno wixii waxayna dheer aynu kaalmaysanno asaan cadow ku ahayn dalkeenna iyo dadkeen arinu intaas weeye diinta aanu gudbo nabigeennii suubanaa maxamed tawrad buu sameeyey ilaah baa u dhiibay tawradda ku ahnayay tawrad buu sameeyey meel adduunka aad tagto aadan dad islaama ku arkayn yaa fidiyey waxa yaa gaarsiiyey tawraddii nabi maxamed loo soo dhiibay ilaah u soo dhiibay baa fidisay oo qof walba oo islaama taasaa saaran gacanku markuu dhashay waa shirinay waxaan hor dhegaysta waxaynu caabudnaa waa ilaahay weynaa waaxid ah wuxuu inoo soo mariyey oo inoogu sheegay dariiqaan raacinayna kitaabkiisa kariimka
wuxuu inoogu soo dhiibay rasuulkeennii suubanaa inoogu soo dhiibay ha inoogu soo dhiibee waxaa halkaas ka soo ifbaxay ficilkii iyo qawlkii nebigu uu ka tegey ayaa ka soo ifbaxay xadiis buu noqday marka qof walba dariiqadiisa ha haysta hadduu doono laakiin midka inaga dhexeeyaa waa tiirkaas dariiqadaada wado laakiin kaas uu ilaahay guddoonshay ummaddaas aan abuurtay inta midowdaan ha kala furfurmina taasoo ha noqoto asalkii dariiqa la raacaya kaas way ku dhaqaaqeen mahad iyo ammaanba waa u jeedinaynaa haddaan taariikhda dib u raaco culimmadii la tirinayey ama tawriyiintii la tirinayay magacyadooda waxay ahayn kuwii badbaadiyey kollayba dadka soomaaliyeed inay baaqi ku ahaadaan islaamnimadooda dawladdu markii ay gaarto go'aan ama sharciga qaranka la dhigo fuliyayaal bay u baahantay de fuliyayaalkii adinka weeyaan waacidiinta weeyaan dariiqooyinka weeyaan madaxda masaajidka weeyaan iyagaa la rabaa inay fuliyaan iyagiiyo wasaaraddooda yaa mas-uuliyadda dul saaran dagaalka labaad waxa weeyaan midka dhaqaalaha waad ogtihiin maciishadu meesha ay sii marayso haddaynaan annagu inta marada dhexda ku xidhanno adkaysanno aynaan tabcinna weligaan ka bixi mayno gun iyo gacan horsi baan u dhammaanaynaa ma gun iyo gacan horsi baan ku jiri karnaa insaanku sharaf buu leeyahay karaamuu leeyahay oo maanu inta ilaaheen cuskanno iyo nafteenna maynu qof iyo yaanba inta qaato waa ka halkaa dow ka baxaye maanu wax ku abuurno bal qof walba gurigiisa muu ku abuuro geed lima inuu bixiyeen kala arkee oo geed babaaya ku abuuro oo geed cambaa ku abuuro waa baxaya qof gurigiisa uusan baxayn ma jirto hortiisa waxaan kaga bixi karnaa inaanu u jeedsano tacab kii badgalaa ha galo kii biri galaa beer ha ka doonto kii xool haysta ha tabcado ha xanaanaysto kii wax kaleeto oo qiimo le qabanaya ha qabto qof gaajaysano gob ma ah gun wey wixii la rabo iyo dantii la rabaa laga samaystaa oo maxaa nagu kalifaya inaanu saas u gurowno dadkeenna inaan jahayna doonaya innagaa la rabaa inaan jahayno tan saddexaad waa dagaalka shacbigeenna lagu abuuray in maanta 16 sano kadib oo dulligii foosh xumaa aynu ka soo baxnay dad ahaan iyo qaran ahaanba haddana la doonaya dib in loogu celiyo qabiilkii xumaa oo isticmaar ka dambeeyo waa isticmaarka xabashida waxaa loo baahanya ummadeenna inaynu hanuunino oo culimadiinaan waaweyno weliba aad marada dhexda ugu xirataan ayaa loo baahanya waxaa loo baahanya inay ku tarsaasiyaan oo kor uga hadlaan oo si geesinima uga hadlaan inay ummadooda toosiyaan oo ka hanuuniyaan dariiqa jahannabka ah dariiqa muslimka inay ku leexiyaan wasalaamu calaykum waraxmatullahi